si loo xaqiijiyo rajada iyo daryeelka caafimaad ee ay u baahan tahay Xidigle Faa'iza Cabdirashiid Cabdi ayuu kulanku ku saabsanaa waxaana isugu yimid xildhibaano iyo siyaasiyiin kuwaas oo ka wada dharagsanaa xaaladda caafimaad ee Faa'iza hadda halka ay ku sugan tahay. Faa'iza oo dalka Turkiga wax looga qaban waayay ayaa dhaqaatiirtu waxay ku wargeliyeen in xaaladeeda lagula tacaali karo oo kaliya dalka Jarmalka iyada oo haysata muddo kooban haddiise waqtigaas wax looga qaban waayo rajadeedu ay tahay mid burburtay. gudoomiyaasha dhalinyarada maamul goboleedyada dalka ka dhisan ee kala ah Hirshabeelle iyo Jubbaland ayaa sheegaya أنا قاعد مجيء دانيرة إرشاد إن دمان دانيرة الصومالية إن وراشة بلنتي لوسمي لوجا دبي روح ما عرفت أهلجمع يدل كان دبعتها كسو قارتي تقوله دبعتوين ما عرفت ما أنت هذا كل إنسان كونا ما عرفت كونا عشان كسو قاري إن ما عرفت بلنتي لوجا دبي لونا سمي ما عرفت عافمات ملك استعدونك إيجابته maxamed aadan afxar rago iyo Firdawsa Abtidoon oo labaduba ka tirsan ciidanka Soomaaliyeed ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in laga dhabeeyo ballanqaadkii Faa'izo madaxda qaranku ay ka qaadeen si bay yiraahdeen ciidanka kale ay ugu dhiiradaan in ay waajibkooda gutaan. waxaan codsanayaa in gabadhnimo lagu eego dumarnimo lagu eego la ixtiraamo loo kaco ugaada kuna darsada marka loo kaco Faa'izo waxay u helinaysaa qaranka guri tegi mayso شيء ده هرك تجلس دل كانوا لما تدخل حرام يقولها السنة اللي أنا تعليق أقول إن وزارة العشان كمسير كذا يوم كذا تريح عينك لما أنت فإذا أنت مش هتنجلي قول لك هذا فرق من فإذا ما هترتكو ما أنت لبعض كل على مسير براني أبسطنا وأنا أنا من هاي ما من هذا القانون ما xildhibaan aadan isaaq oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in Faa'izo ay kaga muhiimsan tahay caafimaadkeeda dalkan oo mid ah isaga oo ku baaqay in dawladdu ay ka dhabayso ballanqaadkeedii waxaan hubaa in Faa'izo ay ku guuleysatay ay taxamushay xanuunada dadka badnaa ee soo maray ayna wax walba ka qaalib noqotay ay ka guuleysatay maanta way yar tahay qof iyada oo kale inta soo dhalinyaro hanka ay leedahay waxaan aaminsanahay inuu saaran yahay hankii saxaabada saarnaa Faa'izo waxay rabtaa caawa inay aragto Soomaaliya qurux badan muhiim ma caafimaadkeeda aniga waxaan ka mid ahay dadka aadka ugu dhow marwalba la sheekaysta caafimaad helkeeda waxaa marwalba kaga muhiimsan inay aragto marwalba Soomaaliya oo qurux badan. Senator Muna Umar Xasan oo ka tirsan aqalka sare ee dalka ayaa sheegaysa in mas'uuliyadda caafimaad ee Faa'izo aan looga fadhin dawladda oo kaliya iyada oo ugu baaqaysa bulshada inay garab istaagaan walaashood Faa'iza ugu dambeynna waxa ay sheegtay in yabooha iyadoo ay iska bilaabayso baarlamaanka aqalka hoose waxaan u maleynayaa golaha shacabka waxaan u maleynayaa inuu yahay 275 sax haddaan qaldanahay min kun haday la isku qoro imse noqonaysa waxaas waa wax shaqayn kara haddii Soomaalinimo jirto hooyo kasta oo ku jirta baarlamaanka hadday ka soo dhigto ilmaheedu inuu kursi saaran yahay 55 aqalka sarena lagu daro Faa'izo wax badan bay u qabanaysaa hadda lacagta la sheegay laga rabo waa 100 iyo maxay ahayd marka waan qaban karaynaa hadda waxaan doonayaa dhalinyaro ay wadarkaysan halka rajadu marayso ومن كنا يسكت درنا من $100 يسكت درنا من كنت لا يسكت درنا من $100 يسكت درنا عن شقينا madaxda ugu sareysa dalka ayaa Xidigle Faa'iza Cabdirashiid Cabdi waxay u sheegeen in xaaladeeda caafimaad dibadda lagula tacaali doono balse ballanqaadkaas oo madaxda ugu sareysa ee dalku ay ku dhawaaqeen wali ma fulin. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.